عليكم وإذن السلام أنت أفك الصومالي كفوها قشة هو ما أنا كمانا وريايا ودنكينا دمان الصومالي لو موضوع بان وتاكير كيس العا صومالي أبدا كيس ألبان إنو يدينيا simple question دوغا سؤال وريايا ودنكينا كما faantaan Soomaali hadaan nahay horta wadankeena kuma faantaan wadankeena Soomaaliya kuma faantaan ma garatay waxaan ku faanin wadankeena kuma faantaan mana haysataan wax aan mana haysataan oo ma haysano waxaan wadankeena ahayn marka Soomaaliya sababta wadankeena ugu faano weeyeen oo aadana leedahay wadankeega waan jecelahay wadankeena wax qarin wadankeena waad qarxeen aad iyo aad baad qarxeen criminal population baan noqonay waxaad maxaad u qarxeen sababta hooy wadankeena waa qarxeen Soomaaliyeey maxaad u qarxeen wadankeena adduunka dhan maxaad noogu qarxisaan oo kaas idinku joogno qurbahana kaasban idinku joognaaye maxaa adduunka dadka masaakiinta u dhacaysaan hadda waxa weeye meel walba waa noo taagantii kaasban idinku joognaaye qurbahana waa dul oo nagu qarxeen waa ku qarxeen ilaahay naga sii qabto away qurbahana waa idinku joogleeyno meeshaan meel oon tagno ama shaqayso dhano meel walba waa joogtaan marka hadda qurbiina noogu dawladeysaan Soomaaliya noogu dawyaa waa hu is this wadankeena waad qarxeen maxaad u qarxeen wariyaaya wax adduunka ugu jecel waxa adduunka ugu jecel waa hooyana waad ka oohiseen hooyada hadda waad ka oohisaan maalin walba waad ka oohisaan hooyada qaatay taagan tahay waxba xismad idin ma qabo Soomaaliya hooyada oo waayeel waxna qorin waxna akhriin oo Mareykanka u timid inay noolaato hadaad nolol u diideen waxba aniga xismad idin ma hayo I don't have no respect for you Somali people hooyadana waad ka oohiseen wariyaaya maxaa naga qayb qabay maxaa noo qasbaysan waxa weeye ya muwaadin waxa weeye Soomaaliyeey waxa weeye muwaadin waxa weeye wariyaaya maxaa nagu qasbay inaga oo muwaadiniin wariyaaya maxaa inagu qasbay inaga oo muwaadina in aan xoogid noqono idinkaan nagu qasbay ay dadkaada ka helan nolosha dadda aad iyo aad uga helan naga muwaadiniin oo wadankeena joogna nafsooto aan naga dhistaan qof wadankiisa duu doon ku qado buku gaato maantana waxa dhicin next 10 years Soomaaliyeey inaad daaraha daadeer hoos intaad u eegtaan daara miidan Soomaaliya laga dhiso aad hoos u eegtaano aad kulligiin qabaaniin noqotaan krisbooyaal iyo maarka housekeeping iyo wax ka shaqeeya ilaahay idinkiisa waana la arkayaa sababta qaarkiiba idinku joognaa hadda anigu xismad idin ma hayo wax alla waxaan bidaa hadaa hooyadii oo 70 sano jirta ku weydeen oo xismeen weydeen Mareykanka idinka baxsan weedo u taliseen oo aad tawadeedii faraha ka saarteen waxa weeye ana xismad idin ma hayo insha Allah xismad ma helaysaan wallahi beedna helayno billahi beedna laga bilaabo ninkaas kuub ka ahaan jiray gurigii inaad dooraal jaamac dheere hodan tuuga aad naga weydiisaan oo ayda aniga qofku wax dhibaatada ii geysta waan caay karaa waan maaj karaa laakiin Soomaaliya dhan ma Soomaaliya iga raalahaad idinkoo dhan ma aha Soomaali fiican way jirtaa laakiin waxa sheegay inta dhibaatada ay haystaan faraha iyo maarka dhibaatada noo daba wadan sheegaya aniga personal ahaan aniga ka hadlaani Soomaali kale waxa kama hadlaa waxa waay faraha waxa nugula jira waa criminal population ba anaga faraha nugula jiro oo na sheeganahay oo nagu abtirsanaya oo khaad ka joogno tuuga midda kale waxaan Soomaaliya idin sheegayaa marka waxa weeye
mid waxaa sameeyay bay ka arkeen way isku daydaanayaan Soomaalidu waxay ku bacday way isku day hadda maanta anoo mid maadan wax ka caysama daarta bari waxa arkeen something sameeyna war aniga waxaana la igu sameeyay aniga waa la idacay aniga reerkii dhan baan keenay oo markab lagu dhacay meel illa ala geeyay lama dhaqaaleeyo lama caawiyo anigana waa gacanta lagu soo celiyo Soomaalida markii la maxadaan iga caawiyo waa la igu diray midoo meel buu iska dhiga waraaq iyo buug iyo name iyo magac leeyahay reer hebel aniga u taliya reer hebel aniga waxa la iga weydiin masaajidada dhan meel buu magac iska dhigeen dadkii waxa way masaajidadii haysay ama adduunka haysay ama Soomaalidii ah oo wax qori jiray ilaahay kama cabsoonayaan qof bay dhageysanayaan reer hebel bay ka dambeeyaan waa sixiroolayaashii bay ka dambeeyaan waxa weeye sheekadu way dheer tahay maxaa ku soo haray idinku muwaadiniina aan hoosi noqono oo tuugsada anigu ma inaan tuugsanay igu sheegayaan waryaa idinkoo dhan baa tuugsada waxaad adduun ku nooshiin oo Soomaali aad ku urursanaysaan oo hashii oo maalin walba dhiigga Soomaali ku daayay inaad tuugsataan wey oo khaatri idinka joogo oo meel guri ka dhisataan adduunka oo dhan aad siisan ka noqotaan shaqayn mayso annaguna aan meelna fariistay halkan bay buul yar ku leeyahay halkan bay joogtaa halka ku fadhido oo maarta hooyada maanta halka ku silcdo walaalkeed halka ku silcdo anaga aad kala goobgeysar warhaada idinka famil malihidin miya reer malihidin miya caruur malihidin miya xaatiin idinka maxaa ka samaysantiin geedana ka samaysantiin maxaa ka samaysantiin wala xawla wala quwwata waxaa kale waxaan idin sheegayaa qarnigii 19aad line waxay keeneen oo Soomaaliya aan idin sheegay dadkuna ka aqoon badan ka wax barasho badan dadku waxaan sameeynayaa oo jaahiliinta adeegsanaya ayagu waxa isticmaalayaan qoraallo ay isticmaalayaan waxa ay soo barteen Scandinavian iyo Europe ka soo barteen ay isticmaalayaan iyagoo isticmaalaya qarnigii 19aad jaaka akhriska 19aad juma qarnigii 19aad baa kula sameeyay hay'adaha magacyada siyaasiga waxa ayagoo ah qabiiladan isponsorayad aragtay halkaas laga keenay awowga ama waxa dhaqaysan inta saddex magac ama saddex number aad ka raacdaan xalal isku qalaan bana isku dadbaan waa sheekadii Germaniga weeyaan Germanic tribe-ka iyo qarnigii 19aad lagu dhigay adduunka Afrika la soo geliyay shaqadii Afrika la soo geliyay Germaniga soo geliyay markii uu haystay qayb kamid ah East Africa waxaasay ku dhaqmaan adigana waxay ku dhageysanayaan waxna ku sheeginayaan laakiin dadka aniga sida ninka xunka ah oo tuug ah waxna la ka weydiiyo oo kale wixii la mid ah daraalo waa laga xukumayaa dadka noocaas ah xukumayaa marka waxa Soomaaliya aad iyo aad u ogaatay horta waxa lagu xukumay sharciga lagu xukumayaa sharci Ilaahay ma diin Ilaahayna ma aha waxa lagu xukumayaa waxa weeye sixir kuna muxuu yahay sixirkii bazaad Abu Mudallib markuu weydiiyo wiilkiisa sheekada ay ka bilaabatay dad Abu Mudallib Shariif Abdullahi ana wiilka waa hooyadii walaasha hadda faraha la soo galay oo walaasha ilmaha dambe ka dhalay Abdullahi baa leeyahay kaamkaas ay nagu wada walaalayaal Ilaahay rabbiday wallahi dadkan aniga intaan aqoon u leeyahay oo aqoon u leeyahay ma fahnayaan geemkood kan naftiisa walaasha waa lagu soo aadiyay ninkan kalena way is yaqaaneen waa uga baxay geemka si xuraalo markii hore isaga raac magacu bedeshay maxamed ciyaal buu la baxay uu ka booday maxamed ciyaal buu la baxay waxa uu la baxay ay buu ahaa isaga tuug asiga reerahooda dad Ilaahay dab waa ku dhashin karaa dab bay nagu dhajinayaan dab